ururka Ramad oo ah urur inta badan u dhaqdhaqaaqa samafalada dadka ku dhaqan deegaanada hoos yimaada degmada Seylac ayaa waxa uu isla maantaba sidoo hore looga bartay uu qeybiyay dhar ciideed 30 caruur oo agooma ah isla markaasna iskugu jira wiilal iyo gabdhaba kuwaasi oo ku dhaqan tuulada Toqoshi caruurtani agoomaha ah isla markaasna maanta ay u qeybiyeen ururka Ramad dharka ciida iyo sidoo kale raashinka ayaa waxa ay si farxad ku dheehan tahay ay ugu mahad celiyeen ururka Ramad deeqdan uu soo gaarsiiyay iyagoona eeba uga bariyay inuu miisaanka xasanaadka ugu daro waalidiintii dhalay caruurtani agoomaha ee maanta lagu qeybinay dharka ciida tuulada Toqoshi ayaa iyagoo arrimahaasi ka hadlay waxa hadalladooda ka mid ah sida tan yahay caafimaad Allah siiyo sida noo siisa Allah ku siiyo sida noo siisa Allah ku siiyo waan kuugu mahadnaqaynaa oo Ramad noo ka tagu mahad celin hay ya walaalahay hay mahadba yakana naga geeyda hay oo ku mahadin wixii ardayda ciida raashikooda ubadka waa ka loo soo ciisiyay Ilaahay ma ku mahadinaa hay Ilaahay mahad ka gaadhaan leena walaalahay sax hay anaka umada nabigaba hay sida ay mahad Ilaahay waan leenahay hore boqol Ramad noogu hagaagtay ay noogu dhantahay walaalahay soo ciisiyay Ramad aad baan ugu mahadnaqanaa dad Itaaliyar oo agoona ay noo soo ciisiyay alxamdulillah aad baan ugu mahadnaqanaa way maadsan yihiin maanta waxa loo yimiday Ramad qolada Ramad waxay noo keeneen waxa ciisay saddex qof ciisiyeen iyo waxoogaa raashinna waa siiyay in badan waan mahad celinayna dadka ay la qabsan farxadda ciida ajarkana waxa Ilaahay bareynaa Ilaahay wax khayr ugu bedelo inta wax khayr ugu bedelo waxa kala Ramad ugu mahad celinayna in badan bay ka shaqaysaa gobolka Seylac waxbarashada caafimaadka waxyaabo badan bay ka shaqaysaa had iyo jeer waa hay'ad kaliya u joogtay in badan inay dadka iga caawiso waan ducaynaynaa waan u mahad celinaynaa inta ay ka badan ay loo qabtaan waan jecel hadaa lagu soo dhiibo waxaan leenahay la shaqeeyo dalkiina iyo dadkiina ugu dambeynta ayaa waxa isagu halkaasi ka hadlay madaxa xafiiska ururka Ramad ee gobolka Seylac Hussein Daahir Buux waxaana hadaladiisa ka mid ah sida tan maanta taariikhdu tahay 3 bishii 6 2019 kuna beegan 29 bishii Ramadaan ururka Ramad oo kaashanaya urur leeyahay staging elela kana ayaa maanta waxay magaalada Toqoshi tuulada Toqoshi u keeneen 30 qof oo ciyaal oo agooma dharkii ciida si ay uga qayb qaataan ummadaha kale muslimiinta ee faraxsan si ay u ciidaan ayaa waxay ugu tala galeen 30 dhalinyaro 30 caruur oo agooma oo madrasadan xigta quraanka dhigta waxa kale oo inta u dheeraa raashin iyo bariis iyo saliid ah marka si fiican ay dadka nolosha shaqeeyeen si fiican way u qaateen 30 qofna waan gaarsiinay waxaan kale oo rajeynaa insha Allah inay saa noogu sii socoto sanadada dambe ciidaha inaan sii wadno oo intan ka sii badato tirada maanta waa 30 laakiin waxaan rajeynaa sanadada dambe in 30 iyo 50 iyo 60 iyo 70 iyo meelaha noqoto ma aha deeqdan tii ugu horeysay ay ka geystaan ururka Ramad balse sanad kasta ay xilliga ciida soo galaysa ayaa waxa ay deeqo kala duwan gaarsiiyaan dadka ku dhaqan deegaanada hoos yimaada degmada Seylac iyagoona inta badan taakuleeya dadka ay hayntooda yar tahay waa Cali Axmed Yiriye Cali Dhagadol wararka Ariel TV magaalada Seylac